Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idiin soo gudbino. Waxaynu diiradda ku saarnaa xaaladaha xasaasiga ah ee dalka. Qodobada caawa inta badan barnaamijka aynu diiradda ku saari doono ayaa waxaa ka mid ah xaaladii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya oo la soo laabatay ciidamadii iyo gawaaridii uu la goostay taliya ku-xigeenkii ciidanka Haram Cad oo ku biiray ciidamada badbaado qaran. Villa Soomaaliya waxaa maanta ay qaaday tallaabo kale oo muran aad u xoogan abuurtay kadib markii madaxweyne Farmaajo mid ka mid ah safiirada ugu muhiimsan uu warqado ka gadoomay. Jubbaland oo faahfaahin ka bixisay inay ka qaybgali doonto shirka ra'iisul wasaare Rooble uu iclaamiyay, laakiin shuruud adag ayay ku xireen. Midowga Yurubna waxa ay dhabarka ka toogteen mucaaradka oo dhowaanahan ay si weyn u taageerayeen, iyadoo loogu baaqay ciidamada mucaaradka u dagaalamaya in caasimadda ay isaga baxaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqatay, nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commenting in fikirkaaga aad inoogu reebto ha naga ilaabin. Markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso. Waa habeenimo ay sii baxayso Isniin Talaadana soo galayso, taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 3 bisha May sanadka 2021. Waxaynu gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. Aynu ku horeynay dowladda Soomaaliya ayaa dadaal iyo cadaadis dheer kadib waxa ay mucaaradka kala soo laabatay ciidamadii iyo gawaaridii uu la goostay Kabtan Muumin oo ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka Haram Cad ee sida weyn ay ugu dhaarato dowladda. Sida ay xogta ku ogaadeen warbaahinta gudaha, waxaa dib loogu celiyay gacanta dowladda Soomaaliya ciidamo iyo gawaari uu la soo tagay taliya ku-xigeenkii ciidanka booliiska gaarka ah ee Haram Cad Muumin Ciise Maxamuud oo xalay ku biiray ciidamada lagu magacaabo badbaado qaran oo daacad u ah mucaaradka intooda badanna militari ah. Arrintan ayaa ku timid wadahadal dhex maray saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkii warfaafinta Al-Cadaala. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada la magac baxay badbaado qaran iyo xubnaha ka socday dowladda Soomaaliya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo ciidamadii iyo gawaaridii uu la soo goostay taliya ku-xigeenkii Haram Cad Muumin Ciise Maxamuud, taasoo ugu dambeyntii kusoo dhammaatay si guul ah oo is-afgarad ah. Taliya ku-xigeenkii ciidamada Haram Cad Muumin ayaa ku adkaystay inuusan dib ugu laabaneyn gacanta dowladda Soomaaliya, wuxuuna isaga si rasmi ah ugu biiray ciidamada diidanaa muddo kordhinta gacanta ay ku hayaan dhammaan golaha midowga musharaxiinta oo taageersan. Ciidamadii la socday Muumin ayaa cudurdaar ka bixiyay tallaabadii ay ku dhaqaaqeen, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin go'aanka soo goosashada islamarkaana ay ahayd wax ku kooban taliya ku-xigeenka. Horey saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo ciidamo ay wataan ayaa ugu biiray ciidanka siyaasiyiinta mucaaradka ah, waxaana muuqanaysa ciidamadaas in taageero xoogan aad loogu raadinayay oo siyaasiyiin caan ah ay u raadinayeen. Waxaa socon waayay qorshihii muddo kororsiga, kadibna golaha shacabka kulan maalin kahor ay yeesheen ayay dib uga laabteen. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay inuu gebi ahaanba doorashada iyo amniga ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha, laakiin mucaaradka ayaa weli u arkay in arrintaas afka oo keliya ay ku kooban tahay. Dadka ka hadlay ciidamada mucaaradka daacadda waa iyo sida ay isugu fidinayaan qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah Senator Muuse Suudi Yalaxow oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu lunsan yahay islamarkaana ciidamo uu ugu magac daray shimbir, mukulaal iyo wax la mid ah uu isku dayayo inuu ku caburiyo dalka. Waxaana madaxweynaha uu ugu baaqay in gebi ahaanba uu isaga laabto tallaabada uu ku doonayo in uu dalkan isugu dayayo inuu awood ku maamulo. Islamarkaana waxa uu soo jeediyey Senator Muuse Suudi Yalaxow in madaxweyne Farmaajo looga fadhiyo in uu isaga guuro Villa Soomaaliya, guri kira ahna uu ka dego qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Haddaba maanta waxaa soo baxaysa arrin ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu qaaday tallaabo kale oo si weyn uga caraysiisay guud ahaanba mucaaradka xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo kororsigii dhowaan laga baajiyay madaxweynaha iyo doorashada sida loo qabanayo. Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga mar kale waxa uu ka gudoomay safiir Soomaaliya loo soo magacaabay, isagoo tookadan ka gudoomay safiirka dowladda Itoobiya u qaabilsanaan doona Soomaaliya Cabdifataax Cabdullaahi Xasan, iyadoo xogo soo baxaya ay muujinayaan in madaxweynaha arrintan ay si weyn uga caroodeen dadka siyaasaddiisa ka soo horjeeda. Danjiraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Cabdifataax Cabdullaahi Xasan oo madaxweyne Farmaajo oo muddo-xileedkiisu dhammaaday la wadaagay fariin iyo salaan uu uga sido dalka Itoobiya iyo weliba
sida ay Ethiopia u doonayso in Soomaaliya wada shaqaynteeda ay u xoojiso. Madaxweyne Farmaajo ayaa uga warbixiyay safiirka guulaha wax ku oolka ee la gaaray, isla markaana wuxuu sheegay inay rajeynayaan in Ethiopia iyo Soomaaliya ay sii kaashadaan. Laakiin marka la eego horey waxa uu madaxweyne Farmaajo 8 Febraayo wixii ka dambeeyay warqadaha aqoonsiga uga gadoomay safiirkii dowladda UK ay usoo magacaawday Soomaaliya, iyadoo sidaas la mid ah iminka ay ku tilmaameen mucaaradka in Farmaajo xilligan uusan awood u lahayn in warqado aqoonsi uu ka gudoomo mid ka mid ah safiirada caalamiga ah ee Soomaaliya loo soo magacaabayo. Xogta soo bixaysa ayaa waxa ay muujinaysaa in madaxweyne Farmaajo culaysyada haatan ku gadaaman ay sii kordhi karaan, maxaa yeelay Farmaajo muddaxileedkiisu wuxuu ka ekaa 8 Febraayo. Mucaaradka ayaa ku doodaya inuu isaga baxo villa Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooblana looga fadhiyo in dalka uu gaarsiiyo doorasho wadar ogola. haddaba dhinaca kale haddii aynu eegno dowlad goboleedka Jubbaland waxa shaaca ay ka qaadeen inay ka qayb gali doonaan shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, laakiin shuruud adag ay ku xireen ka qaybgalka shirkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da laanteeda afka Soomaalida ka hadlayay ayaa ku baaqay in la isu tanaasulo danta shacabka Soomaaliyeedna la eego, isla markaana ra'iisul wasaaraha looga baahan yahay inuu xal u helo arrimihii lagu muransanaa. Jubbaland waxay ka qayb galaysaa shirka ra'iisul wasaaraha ku baaqay 20 bisha. wax kasta oo aan rabnay ee habsami u socodka doorashada la wada ogol yahay waxaan soo saari doonaa miiska wada hadalka. Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa waxa uu codsaday in xalka laga raadiyo wada kasta isla markaana lagu daro sidii gobolka Gado looga saari lahaa ciidamo uu sheegay inay kulmeen siyaasadda, sidoo kalena laga wada hadlo afduubkii loo geystay madaxdii Jubbaland ee gobolka Gado oo uu tilmaamay in si xooga Muqdisho loogu haysto halkaasna looga dajiyay. waxaan kaloo ra'iisul wasaaraha ku dhiirigelinaynaa inuu qorshihii amniga qaranka ee uu isaga hadda hayo ku daro sidii xal looga gaari lahaa ciidamada siyaasadda ku milmay 2 sano ee ugu dambeysay ee ay qayb ka tahay gobolka Gado ee albaabada isugu dhuftay hay'adihii dastuuriga ahaa, laguna daro waajibaadka guddiga shaqada ka wada Muqdisho, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. marka la eego in gobolka Gado laga soo saaro ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo uu amray in halkaas la geeyo, ayaa dadka qaar waxay u arkaan inay tahay culays kale oo ku soo kordhaya guud ahaanba wada hadallada. maxaa yeelay madaxweyne Farmaajo oo muddaxileedkiisu uu ku ekaa 8 Febraayo ma ogola in gobolka Gado uu xukumo Axmed Madoobe, isagoona si cad u sheegay markii laga qayb galayay shirarkii Dhuusamareeb 1 ilaa 4 in madaxweyne Farmaajo uusan doonin inuu kala hadlo Axmed Madoobe arinta gobolka Gado, taa beddelkeedana madaxweynaha looga fadhiyo in markaasi uu ka shaqeeyo doorasho ka dhacda magaalada Kismaayo oo kaliya garbahaarayna dowladda ay si gaar ahaaneed u magacaabi doonto. haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaas tahay daawadayaal, dhinaca kale markaan eegno maanta dunida waxaa looga dabaaldegayay maalinta xorriyadda saxaafadda dunida, laakiin waxaa si xasaasi ah u soo ifbaxaysa madaxweyne Farmaajo in uu dejiyay istiraatiijiyad uu gabi ahaanba ku burburinayo qaar ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn dalka ee ku yaala caasimadda Muqdisho. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa falanqeyn ku sameeyay waraysi uu bixiyay askari lagu magacaabo Sayid Cali ka oo sidoo kale ah cameraman, isagoo ka jawaabaya eedeymaha ah in mustaqbal qalabkeeda uu qaatay shaqaalaheedana uu jirdilay. waraysiga askari ka tirsan Haram Cad ee ka warmay dhacdadii lagu qaniimaystay xarunta warbaahinta Mustaqbal waxaa ku dhex jiray arrimo halis ah oo aan ciidan qaran laga filan karin, ayuu yiri wasiirka amniga maamulka Galmudug. wasiirku wuxuu yiri wuxuu isticmaalay ereyga qaniimo oo ah erey ay kooxda shabaabku si xun u adeegsadaan marka ay xalaaleysanayaan xoolaha dad ay aaminsan yihiin inay gaala yihiin. 2 wuxuu sheegay in askarta hantidaas ku qamaamtay uu qof walba wixii uu qaadan karo u fasaxan yahay oo aysan jirin isla xisaabtan iyo tirikoob lagu sameeyo wixii meeshaas laga qaaday. 3 wuxuu sheegay ciidankaas weerarada iyo howlgallada ay sameynayaan in taliska booliiska ee uu hoos tago aysan wax war ah ka hayn.
4 wuxuu sheegay inay beegsadaan warbaahinta isticmaasha ereyga madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ama madaxweynihii hore. 5 wuxuu sheegay in madaxtooyada uu ka yimaado amarka ay ku howlgalaan goobaha iyo shakhsiyaadka ay weeraraan. 6 wuxuu sheegay wasiirka amniga maamulka Galmudug in qaar ka mid ah idaacadaha Muqdisho ka howlgala in weerarada soo socda ay ku soo wajahan yihiin, isagoo sidoo kale magacaabay qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka guryahooda in la qaniimeysto iyo in amarkeeda ay haystaan. La yaab waxaa leh askari ka tirsan ciidamo qaran inuu isticmaalo isagoon la qasbayn erayo la mid ah kuwa shabaabku sida xun ugu isticmaalaan boobka hantida dadka. waxaase in la isweydiiyo mudan ciidamadii amniga dalka in ay ilaaliyaan loo soo tababaray in ay ka hortagaan argagixisada iyo inay noqdaan kuwo erya guud ahaanba dadka dhibka ku haya dalka, in ay dhibaateeyaan howlgaladoodana lagu saleeyo guud ahaanba warbaahinta dalka. wiilkan dhalinyarada ah ee waraysiga bixiyey waxaa ka muuqatay deganaan iyo in uu isku rogayay oo iska fogeynayay eedo si gaar ah dusha looga tuuray, balse waxaa daaha uu ka rogay arrimo dad badan aysan ka warqabin oo ku saabsan ciidanka xoogga dalka, ayuu yidhi. ereyga qaniimeysi ayaana noqday erey aad iyo aad dad badan uga yaabiyey, taasi oo dadka qaar ee dowladda kasoo horjeeda ay ku micneeyeen inay isku dhex milmeen shabaabka iyo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyntii midowda Yurub dhabarka ayay ka toogteen ee golaha midowda musharaxiinta kadib markii ay amreen ciidamada militariga ah ee kasoo horjeeda dowladda in laga saaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ururka midowda Yurub ayaa dalbaday in ciidamada militariga laga saaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo xiisadii magaalada ka taagneed ay raqabowday. danjiraha midowda Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa waxa uu ku yiri in militariga laga saaro Muqdisho waa muhiimadda koowaad ee iminka. dadka doonaya in ay ciyaaraan kaalin wanaagsan waxaan leenahay qaata go'aanka ugu wanaagsan oo ah in ciidamada isku hor fadhiya Muqdisho la kala qaado, ayuu yiri. midowda Yurub ayaa toddobaadyo ka hor waxay ka gaabsadeen ka hadlidda arrintan, laakiin mucaaradka ayaa ku doodaya in ciidamadan sabab ay u soo galeen magaalada Muqdisho ilaa iyo sababtaas laga xaliyana aysan jiri doonin haba yaraatee sabab looga saari doono magaalada Muqdisho, iyagoo madaxweynaha ku sheegay nin balanfur badan oo aan la isku haleyn karin. xoga xasaasi ah oo soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in dowladda Qatar ay dhabarka ka jebinayso madaxweyne Farmaajo oo ay garab taagneed 4 sano ee ugu dambeysay, iyadoo xogtan saacadihii ugu dambeeyay aad ay u soo shaac baxday. ilo xog ogaal ayaana la wadaagay in xubnaha ka socday midowda musharaxiinta oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud, Xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble, Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay kulan gaar ah la qaateen ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Dr. Mutlaq Al-Qahtani. kulankan ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka iyo taageerada dowladda Qatar la garab taagneed madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. musharaxiinta ayaa u sheegay dadaaladii dowladda Qatar ay ka geysatay xilliyadii ay shacabka Soomaaliyeed iska caabinta kula jireen dowladda Itoobiya iyo taageeradii ay siisay midowda maxaakiimta. sidoo kale midowda musharaxiinta ayaa ku eedeeyay dowladda Qatar in 4 sano ee lasoo dhaafay taageero indho la'aan ah ay la garab taagneed Farmaajo iyo Fahad, oo ay u sheegeen in ay dhibaateynayeen shacabka Soomaaliyeed, dhaawac xoog lahna u geysteen geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada. waxaa kaloo loogu eedeeyay in Qatar iyo Turkiga qalabkii iyo hubkii ay ugu deeqeen ciidanka Soomaaliya uu Farmaajo u adeegsaday caburinta shacabka iyo weerarka mucaaradka, gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo dadweyne banaanbaxayay oo ay hogaaminayeen siyaasiyiin iyo mucaaradka, gaar ahaan weeraradii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur 17 Diseembar lagu qaaday, oo ay si gaar ahaaneed u sheegtay dowladda Qatar inay aad uga xun tahay. si la mid ahna dhaqdhaqaaqyadii dowladda Qatar ay ku taageereen Farmaajo iyo Fahad loo adeegsaday burburinta dowlad goboleedyada, laaluushka baarlamaanka iyo iibsashada saraakiisha sarsare ee ciidanka iyo qandaraas shirkado looga iibinayo Mareykanka in lagu siiyay in ay hagaajiyaan xiriirka Farmaajo iyo Trump. waxaa loo soo jeediyay in shacabka Soomaaliyeed uga cudur daartaan gabadfalkaas, qaataanna
tallaabo muuqata oo muujinaysa inay ka xun yihiin taageeradii farmaajo ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Ergeyga ka socda dowladda Qatar ayaa ka dalbaday sida uu xalka ula muuqdo midowga musharaxiinta oo loo soo celin karo kalsoonida siyaasiyiinta dhexdooda. Waxay midowga musharaxiinta si cad ugu sheegeen ergeyga in xalka iyo kalsoonida uu ku soo laaban karo oo kaliya in farmaajo kursiga baneeyo isagana baxo villa Soomaaliya ama uu wareejiyo amniga guud ee dalka, Fahadna kala baxo doorashooyinka guud ahaanba faraha uu kula jiro. waxaa kaloo lala wadaagay ergeyga in dowladdiisa kala shaqeyso ra'iisul wasaare Roble sidii uu u qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah sida ugu dhaqsiyaha badan dalka uga dhacda. Ergeyga ayaa sidoo kale difaacay dhinaciisa, waxaana uu sheegay in dowladdiisa aysan shakhsiyaad taageerin balse ay taageereen dowlad Soomaaliyeed, isagoo sheegay in farmaajo gaarsiiyeen fariin adag oo ay uga soo wada shaqeeyeen dowladda Mareykankana ay wax ka og tahay. wuxuu kaloo sheegay inuu daneynayo xal u helidda khilaafka Kenya iyo Soomaaliya iyo in uu la kulmi doono madaxweynaha Kenya si uu u guddoonsiiyo fariin gaar ah oo uu kaga sido amiirka dalkiisa. Dowladda Qatar ayaa u muuqata in 4 sano kadib ay u xubsiimanayso in dhabarka ay ka jabiso madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo ay ahaayeen isha keliya ee dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ay ku tiirsanaayeen. Guud ahaan waa naga inta barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda. waxaan halkan idinkugu soo gudbinaa habeen kasta xaaladaha xasaasiga ah ee dalka. intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga, waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.